guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka inuu labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu horkeeno jadwalka xogta iyo waxyaalaha lagama maarmaanka u ah qabsoomida doorashada isagoo cayimaya waqtiga doorashooyinka 6 bilood ka hor maalinta doorashada. mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh shantii sano ee u dambeysay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku wuxuu ku guda jiray u diyaargarowga doorashooyinka guud ee qof iyo cod. wuxuu ku guulaystay dhismaha awoodda hay-adda guddiga, kor u qaadidda aqoonta howlgalaanadiisa, diyaarinta qabyo-qoraalka nidaamyaasha muhimka u ah hirgelinta doorashada, diyaarinta manhajka wacyigelinta codbixiyaasha, diiwaangelinta ku-meelgaarka ee xisbiyada siyaasadda iyo diyaarinta qorshayaasha farsamo ee hanaanka doorashada. waxaa guddigu ku goolaystay inuu xafiisyo ka furto inta badan gobollada dalka. ujeedada ugu weyn ee xafiisyada ayaa ah in guddigu gaarsiiyo dadweynaha Soomaaliyeed howlaha doorashada, isla mar ahaantaasna uu dalka ka sameeyo tirakoob goobaha noqon kara xarumaha diiwaangelinta iyo codbixinta, uuna xog ururin ku sameeyo qaybo ka mid ah gobollada oo dhan. wuxuu guddigu soo asteeyay inta badan goobaha dalka ka noqon kara codbixiye diiwaangeliye. mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh diyaargarowgan farsame ee guddiga waxaa barbar socday dadaalo dheer ah oo uu ku jiray helitaanka saldhig sharci oo hagaya howlaha doorashada iyo habreecyada dhammaystira oo loo marayo howlaha doorashada. inkastoo guddigu horumar ka sameeyey u diyaargarowga howlaha doorashooyinka, waxaa hubaal ah inay dhiman yihiin howlo waaweyn oo la xiriira doorashooyinka. mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaa xusid mudan in guddiga laga soo bilaabo kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka 10aad ee sanadka 2017 ilaa kalfadhigii 6aad ee sanadka 2020 uu la wadaagay xildhibaanada sharafta leh warbixinada iyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qabsoomida doorashada. waxaad xasuusan tihiin in sharciga doorashooyinka lagu waday in la asixiyo sanadkii 2018 sida uu tilmaamayo qorshaha xukuumadda ee tubta siyaasadda loo dhanyahay. hase yeeshee wuxuu soo gaaray dhammaystirkiisa maanta oo aan baarlamaanka hor joogno. mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh daahidda shuruucda doorashooyinka waxa uu heliyo caqabado oo wajahaya guddiga oo kale ah kuwa Soomaalidu isku dhex abuurtay iyo kuwa dabiici ah, sida ismaandhaafka siyaasadeed, nabadgelyo la'aanta, fatahaadda iyo dhibaatada caafimaad darro ee ka dhalatay cudurka safarmadka ah ee COVID-19, kuwaas oo dhammaantood xagardaaciya jadwalka shaqada ee guddiga iyo geedi socodka howlaha doorashada. mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh inkastoo ay jiraan duruufahaas adag, haddana guddigu wuxuu sii wada dadaalka uu ugu jiro dhammaystirka geedi socodka howlaha doorashada ka dhiman oo ay ugu horeyso diiwaangelinta codbixiyaha. guddigu wuxuu daraasad ku sameeyey 5 nooc oo ka mid ah hababka loo diiwaangelin karo codbixiyaasha oona waafaqsan halbeegyada caalamiga ee doorashooyinka. waxaan halkan idinla wadaagi doonaa si kooban natiijada daraasadda 2 ka mid ah hababka diiwaangelinta, kuwaas oo aan u aragnay in lagu hirgelin karo doorashada dalkeena. mudane gudoomiye guddiga waxaa waajib ku ah inuu dhaqangeliyo sharciga doorashooyinka ee uu ansixiyey baarlamaanka madaxweynuhuna saxiixay, kaas oo qeexaya nooca diiwaangelinta ee dalku yeelan doono oo ah ku diiwaangelinta codbixiyaha nooca biometriga loo yaqaano iyo howlihiisa la xiriira. nooca diiwaangelinta iyo howlaha la xiriira ayaa waxaa ka mid yihiin in la soo iibiyo qalabka diiwaangelinta codbixiyaha oo runtii shaqadiisu ay meel fiican noo marayso, in hay-adaha amniga xaqiijiyaan xarumaha lagu diiwaangelin karo codbixiyaha oo la sugi karo amnigooda, in la fuliyo wacyigelin ballaaran si dadweynuhu uga qayb
diiwaangelinta in la geeyo qalabka iyo shaqaalaha diiwaangelinta xarunta diiwaangelinta in dadweynaha la diiwaangelinayo oo ka qaybgalaya doorashada in si rasmi ah loo diiwaangeliyo soo saaridda liiska codbixiyaasha oo rasmi ah qaybinta kaarka aqoonsiga codbixiyaha diiwaangelinta rasmiga ah ee xisbiyada siyaasadda diiwaangelinta musharaxiinta ololaha doorashada qabadashada doorashada maalinta codbixinta haddaba waxaan ka hor caddaynaynaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in doorashada ku dhacaysa habka biometriga ah aysan suuragal ka ahayn inay ku qabsoonto waqtigii loogu talagalay ee ahaa November 2020 sababaha aan soo sheegnay dartood sidaa darteed annaga oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu qeexayo oo ah biometriga islamarkaana tixraacayno howlaha muddaysan ee sharciga ku xusan waxaan caddaynaynaa in ay doorashada ku dhacayso nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah oo ka bilaabanaysa July 2020 kuna dhammaanaysa August 2021 mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaa hubaal ah in howlgalka doorasho ee nooca biometriga aan soo sheegnay ah uu waafaqsan yahay sharciga doorashada dhinaca howlgalka balse uu u baahan yahay waqti dheeri ka ah muddada sharcigu tilmaamayo iyo miisaaniyad baaxad leh annaga oo haddaba tixgelinayna xaaladda dalku ku jiro wuxuu guddiga soo bandhigayaa nooc labaad oo diiwaangelin oo lagu magacaabo diiwaangelinta gacanta isla maalinta codbixinta oo afka qalaad looga yaqaan same day manual registration noocan wuxuu ka duwan yahay kan sharciga uu xusayo ee biometriga ah dhanka waqtiga iyo qarashkaba waxaana diiwaangelintiisu ku salaysan tahay in aan la isticmaalin biometric codbixiyaasha waxaa lagu diiwaangelinayaa gacanta isla maalinta codbixinta iyadoo la adeegsanayo diiwaan qoraal ah same day manual registration dhammaanka muddada xileedka baarlamaanka sidoo kale qodobka 53 ee sharciga doorashooyinku wuxuu ku waajibinayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka inuu labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu horkeeno jadwalka xogta iyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qabsoomida doorashada isagoo cayimaya waqtiga doorashooyinka 6 bilood ka hor maalinta doorashada mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh shantii sano ee u dambeysay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku wuxuu ku guda jiray u diyaargarowga doorashooyinka guud ee qof iyo cod wuxuu ku guulaystay dhismaha awoodda hay-adda guddiga kor u qaadidda aqoonta howlwadaanadiisa diyaarinta qabyo qoraalka xeernidaamyaasha muhimka u ah hirgelinta doorashada diyaarinta manhajka wacyigelinta codbixiyaasha diiwaangelinta ku-meelgaarka ee xisbiyada siyaasadda iyo diyaarinta qorshayaasha farsamo ee hanaanka doorashada waxaa guddigu ku guulaystay inuu xafiisyo ka furto inta badan gobollada dalka ujeedada ugu weyn ee xafiisyada ayaa ah in guddigu gaarsiiyo dadweynaha ka sameeyo tirakoob goobaha noqon kara xarumaha diiwaangelinta iyo codbixinta uuna xog ururin ku sameeyey qaybo ka mid ah gobollada oo dhan wuxuu guddigu soo asteeyay inta badan goobaha dalka ka noqon kara codbixiye diiwaangeliye mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh diyaargarowgan farsamo ee guddiga waxaa barbar socday dadaalo dheer ah oo ugu jira helitaanka saldhig sharci oo hagaya howlaha doorashada iyo habraacyada dhammaystira oo loo marayo howlaha doorashada inkastoo guddigu horumar ka sameeyey u diyaargarowga howlaha doorashooyinka waxaa hubaal ah inay dhiman yihiin howlo waaweyn oo la xiriira doorashooyinka mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaa xusid mudan in guddiga
laga soo bilaabo kala fadhigii koowaad baarlamaanka tobanaad ee sanadkan 2017 ilaa kala fadhigii lixaad ee sanadka 2020 uu la wadaagay xildhibaanada sharafta leh warbixinada iyo waxyaabaha lagama maarka u ah qabsoomida doorashada. waxaad xasuusantihiin in sharciga doorashooyinka lagu waday in la ansixiyo sanadkii 2018 sida uu tilmaamayo qorshaha xukuumadda ee tubta siyaasadda loo dhan yahay. hase yeeshee wuxuu soo gaaray dhamaystirkiisa maanta oo aan baarlamaanka hor joogno. mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh daahidda shuruucda doorashooyinka waxaa weheliyo caqabado oo wajahaya guddiga oo kala ah kuwa Soomaalidu isku dhex abuurtay iyo kuwa dabiici ah sida ismaandhaafka siyaasadeed, nabadgelyo la'aanta, fatahaadda iyo dhibaatada caafimaad darro ee ka dhalatay cudurka safamadka ah ee COVID-19 kuwaas oo dhammaantood xagaldaaciya jadwalka shaqada ee guddiga iyo geedi socodka howlaha doorashada. mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh inkastoo ay jiraan duruufahaas adag haddana guddigu wuxuu sii wada dadaalka uu ugu jiro dhammaystirka geedi socodka howlaha doorashada ka dhiman oo ay ugu horeyso diiwaangelinta codbixiyaha.